الله وين ربي بوحداد وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيقا لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وحاولنا عشرة تحنها أها أن وهليني مقع إلهي سبحانه وتعالى ومربا مقع عن سوق هذنيني شرحات كوبا انت إلهي نوغفض ذيها أن كسيج كهليني. waxaan hadda ka hadli doonaa magaca Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee Al-Ghaffar. Al-Ghaffar waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka uu ku xil qarinayo oo waxa aad halayso oo aad khalado lagu asturaayo ee aan banaanka loo soo saaraynin marka aad toobad keento. Marka Allah subhanahu wa ta'ala uunkiisa khalqigiisa bini aadamka ah marar fara badan buu u xil qariyaa. Ilaahay subhanahu wa ta'ala maadaama uu yahay naxariistiisa waxaa ka mid ah inuu dadka uu abuuray khalqigiisa ah waxa ay ceebtooda ah ama khaladaadkooda ah ama dunuubta ay galayaan uu u qariyo oo uu maxaan ku raada u asturo. sida darteed Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka uu sameeynayo uu ku siinayo bini aadanka uu ugu deeqayo naxariistiisana ka imanayso inuu u xil qariyo waxyaabaha ceebaha ka dhaca ama khaladka ka dhacay marka ay ka toobad keenaan uu ka cafiyo una asturo. wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala inta badan raaciyaa in ay laba shay ka imaanayso adigu horta inaad Ilaahay u noqoto ee Ilaahay naxariistiisa oo kugu soo duldegaysa. sida darteed inta badan markuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku dhaafayo oo Ghafuurur Rahiim uu yahay waxa laga rabaa sida Ilaahay Ghaafirud Dhanbi uu yahay in adigana u noqotid qaabilut tawb oo qof toobad keena aan noqoto si Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kugu qariyo wixii dunuub ahaa ee aad gashay. sida darteed Ilaahay asaga haysta amarka dhaafista, amarka cafinta, amarka qarinta, sidoo kalena asaga haysta amarka isla xisaabtanka. sida darteed in lagu xil qariyo waa dhaqan ka imaanayo in marka hore la go'aansaday in dambigaas aanan lagu qabanin oo lagu la xisaabtamin. taas waxay ka dhalanaysaa marka in toobada marka uu Ilaahay ku waafajiyo toobadaas ay ku sahlayso in Ilaahay wixii khalad ahaa oo aa gashay lagu qariyo laguna asturo. sida darteed cafisku waa wixii oo laga tirtiray laakiin qufraanku waa wixii oo lagu xil qarinayo oo lagu sameeynayo meelaad wixii uga dhuumato ama laga cafiyo. Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka khalqigiisa mararka qaar ayagoo ku xadgudbaya oo xadgudub ku sameeynaya buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala iska dhaafaa oo noloshoodii iyo qawaaniintii uu ugu talagalay buu siiyaa. Nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dadkan mararka qaar Ilaahay waxay ku sameeynayaan dhibaato aad iyo aad u weyn laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu maadaama uu ka maqlayo ayaga waxyaabo uu san jeclayn inuu ka maqlo ama dhibaato ah laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu sameeynayaa inuu caafimaad siiyo inuu arsaaqo. waxay oranayaan Ilaahay baa walad leh hadana Ilaahay arsaaqdi buu siinayaa xoolihii buu siinayaa noloshii buu siinayaa. ereyga marka qufraan quraanka siyaabo kala duwan buu ugu soo arooray. mar wuxuu ugu soo arooray iyadoo laga sheekeynayo wax la soo dhaafay oo kala ah oo ficil maadi ku imaanaysa faghafarna lahu dhalik. marna waxay ku imaanaysaa wax soo socdo ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. marna waxay ku imaanaysaa iyadoo hadda lagu leeyahay samee waqfir lana ilaahay inaad ka weydiisato inuu wax alaaleeyo wixii dunuub ah gashay uu ka qariyo oo uu ku asturo oo khalqiga aan lagu fadaxaynin. sadarteed xataa anbiyadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo diray badankoodu wixii hadii arkaan inay khalad galeen Ilaahay bay u laaban jireen. rabbi inni zalamtu nafsi. nabi daawud wakiilaha faghfarna lahu dhalik. ilaahay uu leeyahay waa u dhaafnay wixii uu galay waa u dhaafnay. nabi maxamedna waa tan la faraayo la leeyahay wastaghfir li dhanbik oo lagu dhiirigelinayo. sida darteed Ilaahay quraankiisa wuxuu aad uga hadlay aayadda quraanka ghaafirud dhanbi wa qaabilit tawbi shadiidil ciqaabi dhit tawl. culimada muslimiintu marka ay fasirayaan si aad iyo aad cajiib badan bay u fasiraan. waxay yiraahdaan ghaafirud dhanbi waa marka Ilaahay uu ikraam ku siinayo oo uu ku sharfayo oo uu karaameynayo. qaabilut tawbana waxa waaye inuu toobadii uu kugu nimceynayo oo marka hore lagu siinayo inaad toobada afkaaga ay barato qalbigaagana uu barto. shadiidul ciqaabna waxa weeye markuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala cadaalad sameynayo
oo uu rabo khalqigiisa inuu kala cadaalad sameeyo. sidaa darteed ilaahay subxaanahu watacaala qofka aqoonta iyo yaqiinta iyo hubsashada haysta, ilaahay mararka qaar wuxuu siinayaa awooddii uu ku keeni lahaa towbada, wuxuuna ilaahay siinayaa ghufraan oo ah in wixii uu sameeyey ee xilka lahaa ee foosha xumaa in ilaahay subxaanahu watacaala uu u qariyo, oo laga raba adigana mar walba inaad ilaahay weydiisato dembi dhaaf. waman yacmal suu'an aw yadlim nafsahu thumma yastakfir illaha yajid illaha ghafuuran raxiima. sidaa darteed waxaa la rabaa marka lagu xilqarinayo waxay dhahaan waxaan tasaamuxa la dhaho, qofka inaad iska saamaxdo iyo makfirada farqiga u dhexeeya waxa weeyaan tasaamuxu waa waxaa simantihiin, laakiin makfiradu waa waxaa qof aanan sinayn oo asagu kuu garanaya inuu ku asturo oo uu ceebtaada iyo waxa kuu qaldamay ee uu kugu arkay uu kaa qariyo. sidaa darteed haddaad rabto inuu ilaahay kuu dambi dhaafo oo dunuubtaada uu ilaahay subxaana watacaala qariyo, oo waxaa xilka leh foosha xunad samaynayso ilaahay inuu kuu qariyo haddaad doonayso, kow waxaa lagaa rabaa inaad istikfaarta badiso oo ilaahay subxaana watacaala mar walba aa weydiisato inuu kuu dambi dhaafo. wa an istakfiruu rabbakum thumma tuubuu ilay. waxaa kaloo lagaa rabaa inaad afkaaga joogto uga ahaato inaad ilaahay u toobadkeenayso sida ilaahayba uu kuugu sheegay, watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun. waxaa kaloo lagaa rabaa si mar walba laguga aadiyo inaad ilaahay toobad u keento oo dambi dhaaf weydiisato jidka saxda ah oo ilaahay subxaana watacaala ummadda u dooray oo muslimiinta uu dooray inaad raacdo. fakhfir liladiina taabuu wattabacuu sabiilak. waxaa kaloo lagaa rabaa qur-aanka ilaahay marka aad dhegaysanayso inaad iimaan ku dhegaysato oo aad ku dhegaysato kalsooni oo aad ku dhegaysato wax u baahan inaad marka hore leedahay qaabiliyo aad qur-aanka ilaahay qalbigaaga uu ku galayo. waxaa kaloo lagaa rabaa inaad qiimo u leedahay agtaada ay ka leedahay akhlaaqda wanaagsan ee ah cafiska, dadka in la dhowro, dadka loo dhaafo wax alaaliya waxa ay kaa galeen, facfuu wasfaxuu, oo adiga dhaqankaaga ay ka noqoto si ilaahay subxaana watacaala adigana uu kuugu fududeeyo in ceebtaada la qariyo oo dembiyaada la dhaafo. waxyaabaha qaar ku anfacaya waxaa ka mid a inaad camalka wanaagsan samayso, oo camalka wanaagsan wuxuu kuu tarayaa inay jidkii toobadana kuu sahasho, toobadana lagaaga aqbalo. saa darteed adiga markaad cafisna isbarto, toobada jidkeedana aad raacdo, camal wanaagsanna aad samayso, ilaahay subxaana watacaala wuxuu kuu sahlayaa in aad noqoto qof loo xilqariyo waxa uu ku dhaqmayo ama waxa uu qaldayo haddii ay dunuub yihiin ilaahay subxaana watacaala uu ka asturo. sheekh alislaam ibnu qayim aljawsiya hadal aad iyo aad u qiimo badan buu leeyahay marka uu ka hadlayo erey aad u cajiib badan buu soo aroorinayaa oo wuxuu ka hadlayaa bini aadamku inay leeyihiin dhaalim, inuu kaloo bini aadamku uu leeyahay dhaluum, iyo bini aadamku inuu leeyahay dhalaam. bini aadamku dhaalim buu leeyahay oo ilaahay kan qur-aanku yiri thumma awratna alkitaaba alladhiina istafayna min cibaadina faminhum dhaalimun linafsi. dhaalimun linafsi waxaa loola jeedaa qofka naftiisa ku gardaroonaya oo xadgudub ku sameynaya, oo loola jeedo naftaadiba aad halaag iyo dhibaato usoo jiidaysa, aad naftaada ku dhibaateynayso. mararka qaarna qofku xuduuduba kasii baxayaa wuxuu noqonayaa qof aad iyo aad u dulmi badan oo asaga noqdayba qofka ugu dulmiga badan dadka. waxamalaha alinsaanu inahu kaana dhaluuman jahuula. oo mararka qaar qofku inuu gardarada badsado baa waxaaba laga yaabaa inay dhaqankiisa iyo anshaxiisa ay gasho. mararka qaarna wuxuuba noqonayaa qof xuduudiiba ka baxay oo asaga naftiisa ku xadgudbay oo gaarayba xataa naxariista ilaahay inuu dhaho waxba kuma soo gaarayaan, naxariis ma heli doontid. saa darteed wax allaaliya wixii kugu soo dhaca samee. qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah. meeshaasu marka sheekh ibnu qayim aljawsiya wuxuu leeyahay cibaaro aad u fiican, wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu ku leeyahay haddaad dhaalim tahay anigana waxaa noqonayaa ghaafir, haddii aad dhaluum tahayna anigana waxaa noqonayaa ghafuur, haddii aad dhalaam tahayna anigana waxaa noqonayaa ghafaar. saa darteed ilaahay naxariistiisa inaadan ka quusanin oo mar walba naxariista ilaahay aad ka rajo qabto. adigana waxaa lagaa doonayaa ka muslim ahaan markaad barato ilaahay subxaanahu watacaala tilmaamihiisa inay ka mid yihiin inuu khalqigiisa u xilqariyo oo u ceeb asturo, adigana waxaa lagaa rabaa inaad dadka muslimiinta ah ama dadka bini aadamka ah aad u ceeb asturto. waa ka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay man satara cawrata akhiihi lmuslim satara allahu cawratahu yowma alqiyaama. adigana waxaa la rabaa inaad anshax ka dhigato qof walaalka ah hadduu khalad galay ama aad ceeb ku aragtay inaad asturto oo aad u samayso wax qaris ah u samayso. sidaa darteed mar walba oo adiga maskaxdaada ay ku jirto haddii aad gaarto guul waxaa la rabaa tallaabada koowaad inaad adigana ilaahay u noqoto, adigana istikfaarta badiso
وجوشاس أيسن كخلدين فخر الرازي وحوليه النبي عليه الصلاة والسلام مركي فتح مكة هذه ولوسو دجي فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وحلقيا بابو يري النبي عليه الصلاة والسلام أي سوء المسكحة سأوسو قشهدا ما كتكتو dadkii ku dhibaateeyay dhibaatada ku geystay marxaladii hor dhibaatada ku geystay waxa uu sameeyay waqtiga aad uga argoosan lahayd baa hadda la joogaa laakiin wuxuu leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu dhageystay wastaghfirhu hadana uu dhageystay aayada quraanka meesha ku dhamaanayso oo dadkaanu inay kulligood diinta soo wada gali doonaan wuxuu go'aansaday istighfaartaas ilaahay amray inay ku dhex jirto inuu asagana dadkaas badankood cafiyo kulligoodna uu ka dhigo dad uusan waxba u qabin wax allaale iyo wixii uu ka ogaana وحل قريو سيدا درتيد قفك مسلم كا waxaa laga doonayaa manhajkiisa nolosha ama habdhaqankiisa nolosha inay noqoto inuu asagu ka shaqeeyo si aad u gaarto in Ilaahay adiga ku xil qariyo in adigana dadka u xil qariso waxa kale oo laga doonayaa hadii aad ka shaqeyn jirtay wax xun inaad joojiso oo wax wanaagsan aad ka shaqeyso waman taaba وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ولا ربا هداد حمان جهيسين حمان انت جوجيسو او wanaag ku bedesho waxa kale oo laga doonayaa hadii aad xumaan maskaxdaada soo gasho inta aadan fulin inaad ka noqoto waa kan nabiga kaleey salaatu wasalaam sheegay qofka hadii uu xumaan hamiyo laakiin uusan sameeynin wuxuu ku helayaa ajir sadarteed waxa la rabaa ilaahay subhanahu wa ta'ala cadaaladiisa maadaama ay aad u sareyso inaad cadaalada ilaahay aad ilaashato oo ah hadiiba xumaan maskaxdaada soo gasho hadana inta is xasuusatay aad ka laabato ilaahay cadaaladiisa iyo naxariistiisa waxay keenaysaa inay ku keento in iyada laftigeeda aad ajir ku hesho tusaale ahaan hadii qofku uu dambi ku dhex jiray oo is xasuusto oo ka laabto si socodka uu ka sii laabanayo wuxuu noqonayaa qof xasanaad ka shaqeynaya markuu u soo socdayna wuxuu ahaa qof sayi'aad ka shaqeynaya buu ahaa sida darteed ilaahay subhanahu wa ta'ala nabigiisa alayhi salaam waxyaabaha uu kula taliyay oo uu sheegay waxa kamid ah ولا تطرد الذين يدعون ربهم يعني waxa nabiga kaleey salaatu wasalaam la faraya inuu cid Allah la iyo cid dadkiisa kamida uu nuglaado oo san cidna iska eriyin cidna uu safageynin sadarteed ilaahay subhanahu wa ta'ala hadii uu nabigiisi amray inuu dadka soo dhaweeyo oo cidna uu san eriyin maxaa u maleynaysaa in ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa u yaalaan dadkan maadaama uu nabigiisi leeyahay dadkii uu soo dhaweyso ha fageynin ilaahay subhanahu wa ta'ala asagana uu ku soo dhaweynaya wasbir nafsaka ma'a alladheena yad'uuna rabbahum sidaas loo amray inuu u dulqaato la joogo inta ilaahay caabudaysa oo ilaahay baryaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala asaguna karamkiisa iyo deeqsinimadiisa waxay keenaysaa inuu asagana khalqigiisa wax allaale wax xumaan ay sameynayaan intuu iska dhaafo oo ka cafiyo haday ka toobad keenaan wanaag iyo khayr iyo barwaaqo ugu bedelo ilaa nabiga kaleey salaatu wasalaam lagu yiri wa amma saa'ila fala tanhar yani hatta qofkan wax ku weydiisanay inaadan heefin oo hadal asaga u dhibsanaya aadan ku oranin waxba kuma haya iga tag hadda hay ag istaagin hatta hadaladaas qofku waxa loo diidayaa inuu xoogaa dareemo dulinimo ama rafaad inuu dareemo sadarteed ilaahay subhanahu wa ta'ala qawaaniinta iyo akhlaaqda uu sameeyo waxa kamid ah inuu asaguna khalqigiisa u ceeb qariyay ayagana laga rabo inay isu ceeb qariyaan wallahu ta'ala a'lam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wada taqaniini isaga waduudan tashiga lala wadaagayne isaga wuxuu doonayaba cidi la waastayne waxba kama qarsano qalbigu wahan hadduu yeesho wixii waliba waadax iyo waasac maalinaahi alwakiilu magaceeso waa warisaan dhimanaa